shirkan oo looga tashanayo horumarinta iyo tayeynta waxbarashada dalka dardargelinta qorshaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay ku doonayso in sanadkan ardayda ka soo baxaysa dugsiyada sare gobolada koonfurta ee bartamaha Soomaaliya ay kaga qaado imtixaan midaysan samaynta manhaj waxbarasho midaysan iyo qodobo kale oo la xiriira arrimaha waxbarashada dalka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. shirkan oo lagu magac daray asaaska wada tashiga midnimada waxbarashada isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socday maamulada gobolada dalkeena iyo aqoon-yahano. wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Qadar Bashiir Cali oo shirka furtay ayaa sharaxaysa waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo muddada labada cisho uu socdo. wada hadalna imtixaanka midaysnaa oo loo baahan yahay gobolada dhan inay heegan u noqdaan. hadda walaalahay kulli waa wada heegan, waa wada diyaar, hoosh way noo wadaan. imtixaankan waa inoo hirgeli doona ilaahay haduu yiraaho. midda saddexaad waa inaan ka hadalno sidii minxooyinka la wada bixiyo loo wada qaybin lahaay oo gobol kasta wixii xaq ah oo ku aadan oo loo siin lahaay oo lagu aadin lahaay. midda afaraad waaye inaan ka wada hadalno si ayatiinka ardayga Soomaaliyeed oo muqarrarkiisa iyo manhajkiisa aan ugu wada tashan lahayn. Marwa Qadar Bashiir Cali wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya oo aan wax ka weydiiyay qorshaha wasaaradda waxbarashada kaga degan qaybinta deeqaha waxbarasho ee ay hesho wasaaraddu ayaa tilmaamtay in ardayda sanadkani ka gasha imtixaanka midaysan ee qaadaysa wasaaraddu kaalimaha hore ay heli doonaan deeqa waxbarasho. ardaydan imtixaanka galayso kuwa ugu sareysana kulli deeqa waxbarasho heli doona ardayda ugu sareyso buundooyinkooda deeqa waxbarasho la siin doona. marka waxay noqon doontaa deeqaha waxbarasho waxaan u qaybsan doonaa si xaq ah oo cadaalad ah oo gobol kastana saameynaysa arday kastana oo awood siinaysa inay wax barato. dad badanaa laga tagay, dad badanaa laga leexiyay, dad badanaa laga tagay. qorshaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in sanadkan ay ku qaado imtixaan midaysan 24 sano kadib ayaa qayb ka ah horumarka ay ku talaabsanayaan hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya. Nasr Bashiir Cali, TV-ga qaranka Soomaaliyeed, magaalada